waxaa laga yaabaa marar badan inaad ku aragto saaxadda filim samaynta si xog dheeri aadan ka helin, balse maanta muuqaalkeena ayaan kula fagori doonaa waxa uu yahay. السلام عليكم، magacaygu waa Cabduqaadir Abuukar, kusoo dhawo barteeda si aan kula wadaago xogo ku xiiso geli doona insha Allah. Qalabkan afka khalaad waxa lagu magacaabaa Slate ama Clapperboard, balse Soomaali ahaan balaaseej gareen oo eegno. saa u jeedid magac loo yaqaano gaar ah Soomaali ahaan ma jiro, balse aan ula baxno sabuurada jabaqdo. Sababteedana gadaal ayaan ka ogaan doonaa. Clapperboard ama sabuurada jabaqdo waa qalab loo isticmaalo filim samaynta iyo soo saaridda muuqaalka si ay ku caawiso isku xidhka codka iyo muuqaalka, sida kale isku xidhka xogaha productionka iyo post productionka. waxaa laga yaabaa inaad weligaa maqan production iyo post production, balse waa laba heer oo ka tirsan heerarka filim samayn. aan usoo laabano barnaamijkeena. Clapperboard ama sabuurada jabaqda waxaa la sheegaa inuu ikhtiraacay filim sameeye Australian oo lagu magacaabo FW3 1929, balse ay soo martay heerar kala duwan iyo isbedelo joogto ah. muuqaalkeena maanta waxaa taabigelisay Todman Academy oo ah madal lagu barto edit-ka, kaamirada iyo filim samaynta heerarkiisa kala duwan. sabuurada jabaqda habab kala duwanaatay design-ka noocu noqon doono, balse sida caadiga waxaa jirta laba nooc. midka koowaad midka caadigeena hadda isticmaalayna ee manualka gacanta lagu qoro, iyo mid digital ah oo lagu magacaabo Smart Slate. qaabka loo isticmaalo sabuurada jabaqda. marka ugu horeyso sabuurada jabaqdo sidan ay u muuqan doontaa. qaybtan sare productionka waxaa lagu talagalay in lagu xuso kambaniga ama markaas cidii lahayd productionka. haddaan u gudubno qaybta hoose, qaybtan ay ku qoran tahay roll waxaa lagu talagalay kaamirada la isticmaali lahaa iyo weliba memorigeeda. haddaa kuu tusaale kasoo qaad filimkan ama barnaamijkan in lagu duubayo 4 kaamiro kala duwan. aan u qaadano kaamirada koowaad A, tan labaad B, tan saddexaad C, tan afraadna D. kaamirada markaas lagu shoot gareynayo ayaa lagu xusi doonaa Clapperboardka. nambarkan gadaal ka raacsan waa memoriga markaas la isticmaalay, makii koowaada, makii labaada, makii saddexaad, is waa kii afraad. haddaan u gudubno scene, saan ku fahansiiyo scene waa inay ila fahantaa filimka waa waxyaabo sequences ama isku xidhxidhan. sequenceska ayaa waxay u kala baxaan scenes ama muuqaalo. sceneka macnihiisana waxaa loola jeedaa muuqaalka markaas goobta lagu duubayo, waqtigii la duubayo iyo xogo kaloo dheeriyo la socdo. soo inagu dheeraan muuqaalka waan kasii socon doonaa. haddii aad u baahan tahay information ama wax dheeriya, let me know in the comment. muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa. haddaba aan gudubna tag micnaheedu waxaa loola jeedaa inta mar siinka ama muuqaalka la qaaday, ma koowaada, ma labaada, ma saddexaada, qalad ama sax midkuu ahaadaba mar walbo waa balaas. sidaa hadda ugu jeedidba meeshan anaga waxaan ugu qoran inuu yahay taagii saddexaad. aan usoo gudubna qaybtan hoose, director ama agaasime. halkan waxaa lagu talagalay in lagu xuso qofkii lahaa agaasimka filimka ama directingkiisa sidaad u taqaanaanba. qaybta ka hooseyso se way ila fahmi kartaan oo waxaa lagu xusaa qofka kaameramanka ama muuqaalka shoot gareynaya. qaybta ugu hooseysa oo Clapperboardka ama sabuurada jabaqdo. date waa iska taariikhi, balse halkan xogta ku qoran ayaa u baahan inaad si fiican ila fahanto. day and night, halkan waxaa ka garan kartaa maalin iyo haween sababta lagu soo qoray inay tahay muuqaalka xilliga la shoot gareynaya ma haween baa mise waa maalin. int iyo ext waxaa laga soo gaabiyey interior iyo exterior. taasina waxaa loola jeedaa muuqaalka ma interior ma gudaha lagu duubi doonaa, ma exterior baa yacni waxaa lagu duubi doonaa banaanka. waxaa jiri karo interior na exterior in lagu duubo uu muuqaalku noqdo mid continuous ah. mar walba waxaa la calaamayn doonaa qaabka loo isticmaali lahaa siinka ama muuqaalka markaas la shoot gareynayo. haddaan usoo gudubno mouse iyo psych, labadan isdul yaala. waxaa lagu talagalay haddii muuqaalkaa shoot gareynaysa uunan lahayn cod, waxaa calaamayn doontaa halkan MOS. hadduu muuqaalkaaga yeelan doono cod, waxaad oran doontaa synchronize, muuqaalkayga cod ayuu leeyahay. aan soo gudubno qaybta ugu hooseysa uguna dambeyso sharaxaada Clapperboardka. filter waa haddii loo isticmaalayo kaamirada in filter wax la yiraahdo. waxaa laga yaabaa inaad fahmayso ama ku wareerto, balse haddaadan ahayn bahda filmmakingka ama videographerska. saan hore kuugu sheegaba, Clapperboard ama sabuurada jabaqda way ku kala duwanaan karaan qaab qoraaleedka, balse ujeedada waxaa ah qaybta ugu muhiimsan badanaa inay ka siman yihiin.
baahida ugu weyn ama waxa uu qabto clapperboardka ayaa ah marka xogtii aan soo aragnay lagu qoro sabuuradda jabaqda la tusi doono isha kaamirada si ay u qabato xogta ku qoran kadibna haddii muuqaalka uu yahay sync sidaa ayaa loogu dhawaajin doonaa ama la iskugu dhufan doonaa si xogta iyo jabaqda ay kaamirada u qabato haddii uu yahay muuqaalka moos jabaqda lama isticmaali doono sidaan horey u soo baranay markii la keeno softwareka lagu edit gareyn lahaa fayliska ama xogtii la soo aruuriyay editorka waxa uu la socon doonaa muuqaalka uu hagaajinayo xogtiisa sidii codka kaamirada ka baxsan yacni migiska kale lagu soo duubay uu iskugu beegi lahaa waxaana la iskugu aadiyaa muuqaalka sidaad aragto maadaama xogta ku qoran sabuuradda iyo jabaqdaba la isticmaali doono ayna muhiim yihiin sidaa ayaan ugu bixinay sabuuradda jabaqda waxaan rajaynayaa maanta kadib haddii aad aragto sabuuradda jabaqdo geeskaaga inaad wax ka hegi doonto oo isku hooli doonto hoolan lagu idmin hataa si aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto xog fadlan waxay gala soo xiriiri kartaa qaybta Instagram-keena waxaan halkan uga mahad celinayaa tiimkii la shaqeeyay oo ugu horeeyay Cabdiqaadir Abi Boyo Production Sumayo muuqaalkeena halkaas ayuu ku ogyahay waana ku mahadsantahay waqtiga quruxdooda aana siisay inta muuqaalkan muuqaal lamid ah ku kulmi doono nabadiin xogaha post production sida kalena xogaha post productionka iyo shaqalaha behind the scenes ku jirta behind the scenes taas ku jirta hadda isgareena waa ka jira balse hadoo soo gal ninkaanasi muhiimad waxa weeye wax u eg inaad dhaho khasab ma ina erigaas action